kadib markii uu Cristiano Ronaldo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Juventus. weeraryahankii hore xulka qaranka Sweden soo maray kooxo ay ka mid yihiin PSG sidoo kale Manchester United, Barcelona, isla Juventus ayaa isagu Zlatan Ibrahimović waxa uu eedeeyay ama eedan u jeediyay xidiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo. eedaynta Zlatan Ibrahimović uu u diray laacibkii hore kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa sabab u ah kadib markii uu ku biiray kooxda Juventus suuqii xagaaga ee la soo dhaafay taa uu kaga soo dhaqaaqay Los Blancos adduun dhan 100 milyan. Zlatan Ibrahimović ayaa su'aal ka keenay ku biirista Cristiano Ronaldo kooxda kubadda cagta Juventus ee xilligan waxa uu yiri muxuu Cristiano Ronaldo ugu biiri waayay kooxda kubadda cagta ee Juventus dhowr sano ka hor marka ay qaybta ka ahayd kooxda heerka labaad ama kooxaha heerka labaad markay qaybta ka ahayd muxuu ugu biiri waayay xilligaas Cristiano Ronaldo kooxda kubadda cagta ee Juventus sidaas darteed ku biiristiisa xilligan wax faa'iido ah ma laha laguna tilmaami karo loolan ma noqon kartid ayuu yiri geesi haddii aadan u dhaqaaqin kooxda iyadoo ku jirta heerka labaad ayuu yiri isla markaana aad ku hogaamiso inay gaarto heer sare taasi ayaa markaas lagu tilmaami karaa geesinimada dhabta ah isla markaana ah loolan waxa markaasi ay xiise gelinaysaa in xilligan uu ku biiro kooxda kubadda cagta Juventus xiise ay leedahay u dhaqaaqistiisa Juventus balse ma la dhihi karo waa loolan sidoo isagu sheegtay ayuu yiri sidaas darteed wuxuu sheegay in ay ku habooneed in laacibkan uu dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Juventus waagii ay ku laabatay heerka labaad ee kooxaha dalka Talyaaniga sabab la xiriira in kooxdu Juventus xilligaas lagu helay musuq maasuq iyadoo waliba